بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii nutritionka iyo dietka maantana waxaan rabaa in aan ka hadlo mowduuc xaqiiqdii aad iyo aad muhiim u ah mowduucan dad badan oo daawadayaasha ka mid ah ayaa isoo weydiiyey mowduucaas waxa uu ku saabsan yahay 5 siyaabood oo kuu fududeynaya in hilibka zaa'idka ah ee jirkaaga saaran aad iska ridid marka waxaan kuu sheegi doonaa hadduu alla idmo 5 siyaabood oo hilibka zaa'idka ah iskaga ridi kartid oo qof isliim ah oo caato ah aad noqon kartid. caatada aan ka hadlayo waa caatadii caafimaadka qabtay, caatada kala baxda. marka qodobka koowaad waxa waaye in waxaan kaa rabaa in aad ku dadaashid in aad biyaha cabtid, qaasatan ala subax ala saydi markii aad soo kacdid waxaan rabaa in aad biyo cabtid, biyaha badso sababtoo ah jirkaaga wuxuu ka kooban yahay 75% biyo ayuu ka kooban yahay. maskaxdaada waxay u baahan tahay biyo badan, jirkaaga wuxuu u baahan yahay biyo badan. marka waxaa ku dadaashaa in aad biyaha badsatid mar walba. haddii aad gaajo ku qabato marka hore biyo cab sababtoo ah gaajada laba oo kala baxdo, gaajo fake ah iyo gaajo run ah. gaajada fake ah oo beenta ah markaad biyo cabtid way kaa tegaysaa. marka mar walba biyaha ku dadaal. qodobka labaad waxa waaye markaad cunto cuntid waxaan rabaa in aad cabtid biyahaas markaan waa biyaha kulul ama hard waterka loo yaqaano. sababta waxa waaye biyaha kulul waxay sameynayaan cuntooyinkii haraadiga ahaa ee calooshaada ku haray ayay usii dejinayaan. hadhowtiina waxaa kuu fududaanaysa in aad musqushii aadid oo hadhowti waxa waa cuntadii aad cuntid aad iska mataqaanaa fasaxdid. marka waxaa loo baahan yahay mar walbo aad biyo cabtid in aad biyo kulul oo qandac ah in aad ka dawa cabtid. xaqiiqdii faa'iido badan ayay leeyihiin waadna arki doontaa. waana tijaabiyay dad badanna waan u sheegay wayna ku aflaxeen. marka taasna ku dadaal. qodobka saddexaad waxa waaye waxaan kaa rabaa in aad cuntid cuntooyinka nafaqada leh. mar walba aad cunto cunaysid waxaan rabaa in aad maskaxdaada gelisid cuntadan cunto quality-geedu uu fiican yahay ma yahay, nafaqadeeda iyo nutrition ku jira muxuu yahay. ha u cunin cuntada in ay gaajo ku hayso oo kaliya, laakiin waxaa u cuntaa nafaqada iyo quality-ga cuntadaas ay leedahay maxay tahay u cun. marka mar walba waxaa ka fakartaa cuntada aad cunaysid waxa ay tahay ka fakar. qodobka afraad waxa weeye waxaan kaa rabaa in aad lugta badsatid, inaad socodka badsatid. haddaad ordi kartid orod, laakiin mar walba waxaan kaa rabaa socodka iyo inaad noqotid qof active ah. guri markaad joogtid shaqada guriga ka qayb qaado. markaad xafiiska iyo xafiisada ka shaqeynaysa aad joogtid fadhiga ha badsan, soco. haddii ay kugu qasabto in aad shaah cabtid ama wax macaan aad cuntid mar walba waxa waaye istaag oo soco oo qof active noqo, qof energy leh oo wax qaban kara noqo. mar walba calorie markaad cuntay ayaad gubaysaa. marka ku dadaal in aad socotid, ku dadaal in aad qof active noqotid, ku dadaal haddaad ordi kartid inaad ordid. qodobka ugu dambeeya oo aan rabo waxa weeye in aan idiin sheego kaasoo idiin fududeynaya in mataqaana aad noqotid qof caafimaad qaba oo caato ah. hilibka zaa'idka ee jirkaaga saaranna kaa dejin kara waxa waaye in aad iska ilaalisid cuntooyinka macaanka leh. haddii ay noqon lahayd xalwada inaad iska ilaalisid, haddii ay noqon lahayd keega inaad iska ilaalisid, haddii ay noqon lahayd sonkorta inaad iska ilaalisid, haddii ay noqon lahayd wax walbo macaan ah in aad iska ilaalisid ayaan kaa rabaa. waxaan hubaa qodobadii aan hore usoo sheegay, casharada hore aan kusoo sheegay iyo qodobadan haddii aad israacisid inaad arki doontid adigoo biidnillahi tacaala aad noqotid qof caafimaad qaba. hilibka calooshaada saaran, hilibka jirkaaga saaran ee zaa'idka ah, hilibkaas oo dhanna qof mataqaanaa iska daaya inaad qof mataqaana ka tago inaad noqotid. marka walaalayaal waxaan idinka rabaa cajiladan inaad la shargareysaan dadka walaalaha kale u baahan. inta aan iska arki doonno casharkiisa kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.